muuqaalka siyaasadda dadka Soomaalidu way ka niyad jabsan yihiin inaysan ka niyad jabin la rabaa waxaan aniga qof ahaan aan isla gaar yeelaya geed kasta iyo goob kasta iyo wax kasta oo xal noqon karo oo qofka Soomaaliga ka farxin karo oo tusin karo in siyaasaddii meel wanaagsan ay ku socoto inaan tilaabadaas qayb ka noqdo wada hadalladaas qayb baan ka ahaa kuwa dambe hadday imaanayaan qayb baan ka nahay problemu waxa uu yahay laakiin dowlad markay jirto dowladdu waxay la mid tahay markabka naaquudihiisa oo kale dadka kale oo siyaasiyiintaana waxay la mid yihiin rakaabka saaran ay ka mid yihiin tala in laga yeelay u baahan yihiin jihadaas laga leexiyo inay yiraahdeen bay u baahan yihiin laakiin haddana fi nihayat almadaaf qof baa xafiiska joogo qofkaas xafiiska joogo oo ciidamada xukumayo ayaa dalka mararka qaarkood wuxuu u qaadi karaa colaad nabadna waa u qaadi karaa annagu waxaan ku mashquulsanayn waan ku dul qaadanaynay inaan dalkaasi nabad loo qaado welina waa ku taaganahay ismalihii hadda niyad wanaag dowladda wax ku xalismi doonaan laakiin waxaan isleeyahay qaabka Soomaalidu abuuran tahay xilliga iyo qarniga la marayo dadka adduunka uu marayo iyo Soomaaliya iyo saaxiibadeeda rabitaankeena haddii ay isbiirsadaan damaca waalida ah oo dagaalka huwan wax baa laga qaban karaa Soomaali waxaan u ballan qaadayaa geedi socod nabadeed inaan qayb ka noqdo oo siyaasadeed oo aanan ka noqon guluf colaadeed qayb ka noqon